la ka kala socday labada baarlamaan iska soo horjeeda ee waddanka libiya ayaa heshiis ku gaaray sidii loo xalin lahaa dhibaatada siyaasadeed ee dalkaasi ka ogan shirka dhacay. halkani waa b b c london. saacaddu afrikada bari iminka waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo oo go'wa. kulan wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa dhammaantiinba waa galab sabti ah bisha Decemberna ay 6 tahay. barnaamijka qodobada aanu ku soo qaadayna waxaa ka mid ah halkaas xujooyin kala duwan baa ka imaanaya dadka qaarkood markay maqlaan waqtiga aan ku soo biiray iyo kahor maxaan ahaan jiray. horta macallin baan ahaan jiray 75 ayaan anagoo la foole tababarkii macallimiinta soo dhamaysanay ayaanu macallinimo ku bilownay anoo sidii macallin u ahoo Kismaayo iyo Xamar iyo kasoo shaqeynayo Muqdisho joogaa ayaa radio Muqdisho waxaan maalinta dambe ka maqalnay ogeysiis inay doonayaan 3 qof oo wariyaal ah loo tababaro oo shuruudaha caynkaas yeelo oo waa isfiiriyo waxaan leeyahay shuruudahaas waa kuwa aad ka bixi karto. meesha aan sii taagay aduu arjigeygii baan qortay dadkii baan ku biiray waxaan ogaaday maalmo kadib 311 qof inay qorteen raajidii dadka waa la kala saaray aduu 104 qof baa soo hartay ugu dambeyntii. nasiib wanaag 3 qof oo la rabay qofkii saddexaad baa noqday. qofkii koobaad waxaa noqday nin la oran jiray Axmed Muumin Doolal ilaahay ha u naxariistay waa u dhintay iyo maxaa xasan cali wishi oo isaguna hadda wariyaasha waaweyn oo waddanka ka mid ah abwaan qoraa anaa saddexaad baa noqday. sidaasaa markaa nala ku qaatay dad badan oo liiska ku jiray oo aan naga dhicinin oo meelaha qaarkood nooga fiicnaayo kaydkii galayna waa dambe ay iyaguna ku biireen. marka 78 bishii June ayaan ku biiray radio Muqdisho. idaacaddii ugu horeysayna waxay ahayd oo warkii dalka weli waa xasuusta 9 bishii September 78 bay ahayd. markaan radio Muqdisho ka shaqeynayay muddo barnaamijkii bandhiga radioga la dhihi jiray oo aad iyo dadku ay u jeclaayeen waqti fiican soo geli jiray waqti qadada ku beegan oo dadku ay shaqooyin ka soo rawaxaan hees fiican iyo mowduuca markaas ugu muhiimsan dunida iyo wararka dawladda ay soo saarto dadka la ogeysiinayay iyo kadib telefishinkii baa bilowday. telefishinkii markuu bilowday telefishinkii baan haddana ku biirnay barnaamij kale oo isna waxaan ku lahaa la oran jiray mowduuca toddobaadka oo wararka caalamka iyo arrimaha waaweyn ka dhacaya sida faqradda adduunka oo kale baan samayn jirnay annagoo marka halkaa marayna ayaa 80kii BBC-da iyo waxaa heshiis u dhex maray radio Muqdisho ama waaxda idaacadaha Soomaaliyeed. kadibna halkaas ayaa BBC-du waxay ogolaatay marka wariyaasha inay tababarto wariyaal tababaro badan la siiyey oo gabdhay iyo rag iyo dumar iyo nooc walba ah oo saxaafadda dhinacyadeeda kala duwanahan ku jirnay. markii dambena waxay noqotay inay xushaan dad ay ugu talagaleen inay 6 bilood oo shaqo ku tababarada la yiraahdo London loo soo diro. kuwii baan ku jirnay aniga iyo rag badan oo Haydar iyo Daandure iyo Nuur Shire iyo rag badan oo saasi ay ku jireen. marka 88 baan imid 6 bilood markaan dhamaystay waan noqday.